واي dood loogu soo dari laayahay maxaa banaanbaxa loogu qaban laayahay Puntland iyo Jubaland maadaama ay ku saabsan tahay xilkii dalku ugu sareeyay oo Soomaali dhan qofka u talan lahay ku saabsan tahay banaanbaxan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Akhaar sharaftan ilaahdan barakay meel walba joogtaan. maanta waxaa wataa dood ka duwan doodihii normally ah maqli jirteen. doodan waxay ku saabsan tahay aan qabo banaanbaxa ka dhacayo muqdisho. dooda aan ka qabaa waxay tahay maadaama golaha mustaqbalka ay soo abaabulayaan banaanbaxan oona looga soo horjeedo madaxweynaha xilligiis hadda dhammaaday oo xilgaarsiinta meesha u fadhiyo iyo xaqdarada dalka oo ka socoto muqdisho iyo barakicinta iyo maxaa la dhahaye caburinta dhalinyarada iska xirxiraayo iyo waxaas dhan ku saabsan. waxaan isweydiiyaa waxay tahay maxaa ku kooba keliya muqdisho banaanbaxan ilaa hadda ma arkin. su-aashaas meel laiska weydiinayo ama doodaha aan daawaday ma arkin. waayo dooda loogu soo dari laayahay maxaa banaanbaxa loogu qaban laayahay Puntland iyo Jubaland maadaama ay ku saabsan tahay xilkii dalku ugu sareeyay oo Soomaali dhan qofka u talan lahay ku saabsan tahay banaanbaxan maadaama iyaga ka mid yihiin dadka abaabulayo ma iyagana ay qabtaan banaanbax isla maalinta lagu dhawaaqo hadda 4 bisha ah ma looga qabto Jubaland iyo Puntland laga qabto hal mar la wada dhigo. soo kama saameyn badna oo dadka shacbiyada kama badnaanayso in laga soo banaanbaxo Puntland iyo Jubaland iyo Muqdisho. soo kama badnaanayso. waxaa kaloo su-aaliga ah mucaaradkeena jooga muqdisho su-aashaas ma weydiiyeen horta iyaga Puntland iyo Jubaland waayo annaga keliya u banaanbixin adinku banaanbixi la-dihiin. waa su-aal mudan in la weydiiyo dadkaas. marka doodaha waxaa kusoo korinaa waxay tahay in arrintaas horta laga hadlaba banaanbaxa hal maal sameeyo weliba danta waxaa ku jirto mucaaradka inay dadka banaanbaxa u bataan waayo pressureka ku badanayo. haddana waxaa arkayay maraa dheereen waxaa soo baxay war-saxaafadeed kasoo saar beesha caalamka in la wada hadlo oo dalal badan arrintaas soo qoreen. marka caawinaada iyo taageeridu waa sii badanaysa dhankaas kale haddii ay meel kasta laga banaan baxo. arrintaas mucaaradka dan ugu jirta arrintaas inay qaabkaas u sameeyaan oo ay ka dhigaan Jubaland Puntland iyo Muqdishoba hal mar inay ka wada dhacdo.